حديث كان صدنات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان صحابي اللي قبرنا وجبير بن مطعم وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحور هاي نظر الله سبحانه وتعالى ها افتيميو ها نوريو عبدا أدون كاسو سمع مقلي مقالتي أرهديد يو حضل كي يو حديث كي مقلي فوعاها كدب ويلي وحفظها حضن حفظيي ثم انت اسكدب أداها قتي إلى من إد حقذ أقتي أو قارسيي لم يسمعها آن مقلين حديث كاس وحولي النبي صلى الله عليه وسلم أدون إلهي ها افتيميو إلهي ها نوري وجيسي وجركي سبب أو مقلي أرهديد مقلي حضل كي مقلي سنديد أما حديث كي مقلي كدبن ويليي كدبن حفظيي مركو حفظيي او ويليي أيو هدنا وحو قارسيي قف عن مقلين قف عن ميش تشوغين أما قف عن حديثكي أما سنود النبي عليه الصلاة والسلام أيسان قارسيي كودي هورت أسيق وو مقلي وو حفظيي وو ويليي حدنا دادك أيو قارسينا سنود النبي عليه الصلاة والسلام وحو نشرنا يا وفافنا يا سنود النبي صلى الله عليه وسلم يو أحاديث تيسي وحوليه النبي صلى الله عليه وسلم قفكاس إليه حنوريو إليه افتيمي وجهس أيو ليه إلهي سبحانه وتعالى أيو أبريايا أيو أتوغايا وأن فضل أدو قيمة بضوي قفكينو برتا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كدي من أوفافيو وحو نقونايا قف هلي فضلقان إلهي سبحانه وتعالى يكون نورنا وجهك نورنا رسولك صلى الله عليه وسلم دعا ديسن والغو أقبلايا وحير النبي عليه الصلاة والسلام فرب بدنا مد فقه حنبارسن الله بدنا قف فقه حنبارسن هذنا فقيه أنا هين يعني وحو يقانا دين عد أفر بدن سنة محمد عليه الصلاة والسلام كتابك رب سبحانه وتعالى ويقانا وحفظ سنة هاي لكن ما فهم سنة فقيه معهن تصالح محالمة قفك القرآن رب سبحانه وتعالى حفظيي لكن معناها ما يقانو قرآن كتفسير كيسي ومعنيس ما يقانو لكن وحو حنبارسن او حفظسن yahay quraanka rabbi subhanahu wa ta'ala marka waa qof fiqh xambaarsan ee diin xambaarsan laakiin faqih maano ma fahansan way sidoo kale wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wa rubba badana haamilu fiqhin qof fiqh xambaaray badana ila man id hagiisan u xambaaray huwa asigu afqahu minhu ka faqihsan qof ba fiqh xambaarsan yahay diin ay xambaarsan yahay ama badana qof fiqi diin xambaaray haddana gaarsiiyay qof kale oo ka fiqiisan qof kale oo ka yaqaan ayuu gaarsiiyay yani tusaale ahaan waxa loo jeedaa qof ba hal xadiis oo yaqaana hal xadiis ayuu bartay xadiiskii markuu bartay ayuu wuxuu gaarsiinayaa qof kale asiga uu yaqaana qof kale uu gaarsiinaya markaas qof kale ayuu gaarsiinaya waxaan uu gaarsiinaya xadiiskan waa fiqhi weey markuu wuxuu gaarsiinayaa qof kale oo ka fiqiisan markii qofkii kale uu gaarsiiyo oo baro wuxuu noqonaa qofkaasi qof ka yaqaan xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam kan uu ka qaatay marka nabiga taas uu ka hadlaya wuxuu leeyahay alla badana qof fiqh xambaaray oo haddana u xambaaray qof kale ka faqiisan oo ka yaqaan oo ka faham badan intaas kadib wuxuu yiri nabiga alayhi salaatu wasalaam thalathun sadh la yughillu makhyamu alayhinna dushoodo qalbu mri'in muslimin qof muslim ah qalbigiisa kuma khiyaamu waan saddex shay hadii laga helo qofka muslimka qalbigiisa ma khiyaamo koo waxa kamid ah ikhlaasul amali lillahi qofka amal markuu qabanayo Allah subhanahu wa ta'ala dartiisa inuu qabto marba haday ku jirto qofka muslimka qalbigiisa amalka aad qabanayso waxaan aad qabanayso Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiisa u qabo mar haday ku jirto qofkaas ma khiyaamo marna ma hoo qofkaas amalkan Allah subhanahu wa ta'ala dartiisa u qabtay oo qalbigiisa u gashtay وحلايا مخيامو واي مد لباد وحير النبي صلى الله عليه وسلم والنصح يا النصيحين يا دردار لو دردار ماي لأئمة المسلمين مسلمين تأئمة إن لو دردار من وناق لو شيغا إن خير لو شيغا يعني وحال دوني قفك مضح ضعه إن الله خيامين إن الله قهر إيمانين إن الله عاصنين وحال دوني هدي خلط قلان إن لو دردار مو آير لوغو نصيحيوي marka qofka muslimka qalbigiisa haday ku jirto dadka aimada oo madaxda ah u naseexay oo wanaag u sheeg oo khayr u sheeg haday qalbigiisa ay ku jirto marna ma khiyaamo qalbigiisa marka waxa la diidayaa qofka muslimka qalbigiisa inuu ku jirto
khiyaano, bilaayo, dad isku dir, madaxda inuu caayo, dadka yani umarada wax inuu ka sheego, taas lama ogola. midda saddexaad wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam waluzuumu iyo laazimid in la daa'imo jamaacatihim jamaacadooda, dadka inaad ku dhex jirtid, aadan khilaafin, aadan ka dhex bixin, dadka jamaacadooda inaad laazimtid wey. fa ina dacwatahum maxaa yeelay baryadooda tuxiitu waxay koobtaa min waraa'ihim gadaashooda. qofka markuu ku dhex jiro muslimiinta oo jamaacada uu ku dhex jiro, uu laazimo, uusan ahayn mid fallaawoobay oo dadka ka tagay oo dadka ka cari uusan ahayn, baryada iyo tuugmada dadka Allah subxaanahu wa tacaala ay tuugayaan ayaa dadka xareereyso. marka wixii ku xunna Allah subxaanahu wa tacaala ayaa u hagaajinayo, Allah subxaanahu wa tacaala ayaa xifdinayo. marka qofka lama doonayo inuu jamaacada iyo dadka inuu khilaafo ka dhex baxo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiica. marka in la wada jiro oo aan la iskhilaafin oo hal meel loo jeesto ayaa wanaagsan. lama doonayo muslimiinta in la khilaafo oo la garab maro, qofka inuu dadka kasoo horjeesta lama ogolo. waa goorma? laakiin waa markii ay yani khayr iyo wanaag ay ku jiraan wey. laakiin markii ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa ay khilaafayaan ama bidca ay la yimaadaan ama diinka rabbi subxaanahu wa tacaala wax ka hor imaanay la yimaadaan, markaas waa khilaafi kartaa. yacni inay isku raacaan inay zinada bannaan tahay, inay isku raacaan inay khalwada bannaan tahay, yacni wax rabbi subxaanahu wa tacaala xaaraan uu ka dhigay ama nebigiisa xaaraan uu ka dhigay, hadday isku raacaan inay xalaal tahay, markaas waad khilaafi kartaa. taas lagama hadlayo. waxaa la diidayaa dadka ayadoo hal meel u wada jeedaan inaad kasoo horjeesatid, ama waxyaalaha khaladaad yar yar ka dhacay oo la sixi karo inaad kaga soo horjeesatid oo aad khilaaftid, aad garamartid, keligaada meel aad istaagtid, taasaa la diidaya. taas lama ogolo. nabiga taas ayuu ka hadlaya. marka haddii jamaacad aad laasimtid oo qofka muslimka qalbigiisa ay ku jirto, war dadkan mideey oo jamaacadan ka mid ahaa oo qalbigiisa ay ku jirto, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkaasi ma khiyaamoowo, uma hungoowo. qofkaas wanaaga uu niyeysan yahay oo qalbigiisa uu ku jiro wuu helayaa. marka waxaa la doonaya qofka muslimka ah saddexdaas camal aadka u wanaagsan qalbigiisa inay ku jirto.